malaariyada dhib ma leedahay? haa, dhib ay leedahay fara badan oo loo geeriyo karo, sida qofka inay ku dhacdo cerebral malaria oo maskaxda ay bararto, qofkina kooma iyo maxaa la dhahay inuu ku dhaco sida qof qalal qabo oo kale oo noqdo oo jareeyo ama kooma oo galo kabacdina uu geeriyo karaa, maskaxdan ay u dhiman kartaa. salaamullaahi calaykum, waa walaalkiin Torxadle. maantana waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano duumada ama malaariyada, taasoo ah cudur halis ah oo qofka u keeni karo inuu maalmo gudaheed ku geeriyoodo. waxaa keena cudurka malaariyada ama duumada loo yaqaano parasite ama walxa yar aanan la arki karin, ishii aysan qaban karin ilaa microscope la saaro, oo loo yaqaano plasmodium. plasmodiumkaas bini'aadanka toos uma keeno cudurka, laakiin wuxuu usoo maraa kaneecada aan naqaano Soomaaliya ee naqaniinto. kaneecada oo doonayso in ay ku qaniinto ama dhiig kaa dhuuqo si cunto kaaga cunto ayay waxay kugu reebi doontaa parasite-kii markii uu jirka soo galo isla markii wuxuu aadi doonaa beerka ayuu muddo joogi doonaa. beerka markuu kasoo tago wuxuu soo aadi doonaa dhiigga. adiga 48 saac ilaa 72 saac gudahood qofku wuxuu dareemi doonaa calaamadaha ay leedahay malaariyada. haddaba calaamadaha waa nuucee? calaamadaha malaariyada waxaa ka mid ah qofka inuu madax xanuun dareemo, inuu jareeyo, inay qandho aad qabato, in caloosha ay xanuunto, in uu matago, inuu lalaboodo, in qofka uu isku dhex yaaco sida qof waalan oo kale uu noqdo, in mararka qaar kooma ay geliso. haddaba sidee loo daaweeyaa marka malaariyada? waxaa loo daaweey karaa malaariyada in dhakhtarkaaga u tagto lagaa baaro wixii malaariyadii ama parasite-kii saxda ahaa iyo daawadii ku habbooneed in lagu siiyo, sababtoo ah malaariyada hadda waxay samaysatay resistant ama daawooyinkii hadda Soomaaliya badankood waxba kama taraya. marka waxaa fiican in bil kasto aadan farmashiyaha taagnaanin ama 6 bil kasto malaria aadan iska daaweynin, laakiin dhakhtarkaaga u tagto si lagaaga baaro daawada kugu habboon lagu siiyo. malaariyada dhib ma leedahay? haa, dhib ay leedahay fara badan oo loo geeriyo karo, sida qofka inay ku dhacdo cerebral malaria oo maskaxda ay bararto, qofkina kooma iyo maxaa la dhahay inuu ku dhaco sida qof qalal qabo oo kale oo noqdo oo jareeyo ama kooma oo galo kabacdina uu geeriyo karaa, maskaxdan ay u dhiman kartaa. waxaa kaloo dhib leeyahay wax loo yaqaano pulmonary edema ayuu keenaa, taasoo sanbabka inuu qofka biyo ka fadhiistaan ay tahay. waxaa kaloo sababi karaa multi organ failure wax la dhaho, oo ah hal mar inay kaa ciladoobaan xubno aad muhiimka u ah jirka sida beerka yaraha iyo wax loo yaqaano kilida, taasoo qofka markii ay dilaacaan ama ay dilaacaan rabjar sameeyaan qofkii uu u geeriyo karo hadhowti. waxaa kaloo uu keeni karaa anemia, qofkii inay dhiig la-aan ku dhacdo. waxaa kaloo keeni karaa qofka inay sokorta ka dhacdo oo qofka hadhow xataa u geeriyo karo sokor la-aan ama uu kooma u geli karo. haddaba sidee looga hortagi karaa? waxaa looga hortagi karaa qofka haddii uu joogo sida gobolada qaar waxaa ku badan malaariyada, gobolada webiga ee maro dhan iyo gobolada u dhow. marka qofka hadduu gobollo ay malaariyada ku yartahay oo kasoo tago tusaale, waxaa muhiim ah marka uu aadayo gobolada webiga ah in daawadiisa oo qaato maalmahaas uu joogo iyo ka horba iyo kadib si aysan ugu dhicin malaariyada. waxaa kaloo looga hortagi karaa in sansiyeri habeenkii oo qofka uu galo meelaha malaariyada ku badan tahay hadduu joogo. waxaa kaloo looga hortagi karaa in guriga la iska buufiyo. ka hortaga kuwaas waa looga hortagi karaa, laakiin cudurka wuu kugu dhici karaa, laakiin way kaa caawi doonaan. ka hortaga ugu muhiimsan waxa waaye in la cirib tiro malaariyada baasha u naqaano oo biyaha ku dhalato, in biyaha marka ay joogto lagu dhex dilo ama bahal lagu abuuro ama daawooyin lagu buufiyo. taas ayaa ka hortaga ugu wanaagsan ah. haddaba waxaan kugula tali lahaa haddii aad tahay qof joogo meelaha malaria u badan tahay sida wadamadan annaga aan ku nool nahay oo sub-saharinka la yiraaho, in aad ku dadaashid markaad aadaysa meesha ku badan tahay inaad daawadaada qaadatid, dhakhtarkaagana aad kala tashatid. tan kale annaga waxaan ugu badan in malaria qabaa la dhaho, farmashiyooyinka la tago, daawo la iska qaato bil kasto 6 bil kasto qofkii uu daba taagnaado. taas dhibaato ayay leedahay, dhibaato caafimaad oo aad khatar u ah, sababtoo ah daawooyinka malaariyada waxay dhibaateyn karaan beerka haddii aad mar kasta qaadato. marka walaal ka taxadir wax aad qaadanayso, kalana tasha dhakhtarkaaga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.